السلام عليكم. kusoo dhawaada abna official. insha allah muuqaalkan waxaa kaga hadli doonaa sidaad u noqon lahayd duuliye diyaaradeed iyo waxyaabaha basiga lagaaga baahan yahay si aad u noqotid duuliye diyaaradeed. Duuliye diyaaradeed waxay u baahan tahay inaad noqotid duuliye diyaaradeed waxay u baahan tahay kalsooni, karti iyo dhiiranaan, geesinimo. inaad noqotid duuliye diyaaradeed waa profession xirfad aad muhiim u ah, aadna ka samayn kartid dhaqaale fiican oo aad ku maareyn karto reerkaaga iyo familigaaga. fadlan janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kusoo gaaraan muuqaalada xiga. muuqaalka waxaa kaga sheekeyn doonaa ilaa iyo 4 qodob oo kala ah: qodobka koowaad, shuruudaha lagaa baahan yahay; 2, liisinada jira; 3, koorsooyinka lagaa baahan yahay inaad qaadatid; 4, waxyaabaha kaaga baxaya si aad u noqotid duuliye diyaaradeed. inaad duuliye ka noqoto adduunka oo idil oo aad kontaroolshid qaar ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan ee jira waa shaqo riyo ah oo adag. haddana si kastaba ha noqotee, waddo aad ku noqonayso duuliye waxaad u baahan tahay inaad gaarto go'aano badan oo ay ka mid yihiin geesinimo iyo inaad muujisid karti. marka halkee laga bilaabayaa? aynu ka hadalno shuruudaha ay tahay inaad ogaato si aad u bilowdo tababarkaada duuliye ahaan. shuruudaha lagaaga baahan yahay inaad noqotid duuliye diyaaradeed: 1, waa inaad tahay qofka qaangaar ah. inta aadan qaangaarin waxaa lagaaga baahan yahay inaad qaadan kartid casharada duulimaadka, ama intaadan qaangaarin waa qaadan kartaa casharada duulimaadka. laakiin hal sharti ayaa jiro oo ah markaad imtixaan gelaysid, imtixaanka waxaa qasab ah inaad tahay standardka caalamiga ee ayaga ugu talagaleen 18 jir. badanaa shirkadaha duulimaadka badanaa waxay ictimaadaan qofka inuu yahay 18 jir, kuwa caalamiga ah iyo kuwa muslimiinta sidoo kale 18 jir ay badanaa isticmaalaan inuu qofku uu yahay. waa garasoo maahan, laakiin diiniyan 15 waaye oo muslim ahaan markaan ahno. laakiin hadda waxay iska noqdeen Soomahan wax reer galbeedka gacanta ugu jiro. 2, waa inaad luqadda Ingiriiska aad taqaanid oo aad ku tahay professional, waayo duuliye diyaarad markaad noqonaysid waxaa lagaaga baahan yahay inaad luqad labaad aad taqaanid. luqadda Ingiriiska waxaa lagu tiriyaa luqadaha ugu saameynta badan marka aad noqonaysid duuliye diyaaradeed, waayo multi-language oo people ayaad la kulmi kartaa. diyaaradii, qalabkii, matooradii, wixii idil inaad kala fahmi kartid, directionska inaad kala fahmi kartid. waa garasoo maahan, muhiim inaad luqadda Ingiriiska aad taqaanid. 3, waa inaad haysatid shahaado caafimaad oo caalami ah si aad duuliye u noqotid. waxaa jira hay'ad caalami ah oo ay biologyada ay ka qaataan certificate caddeynaysa inaad caafimaad ahaan iyo jir ahaan iyo maskaxiyan ahaan aad awood u leedahay inaad duuliye aad noqotid. 4, waa inaad dugsiga sare aad dhamaysatid oo aadna ka haysatid shahaado. haddaba waxaa jira noocyo rukhsado ah oo duulimaadka ah. 1, waxaa loo yaqaan Light Aviation Pilot License, shatiga duulista duulimaadka fudud ee loo soo gaabiyo LAPL. iyadoo aan loo baahnayn khibrad hore ama aqoon gaar ah oo ku saabsan duulimaadka hawada, waxaad awoodi doontaa inaad hesho tababarkani duulimaadyada diyaaradaha madadaalada ilaa 4 kursi ah. waxaa lagala jeedaa waxaad awood u leedahay inaad kaxaysid oo aad duulisid diyaaradaha yaryar oo 4 kursi iyo 2 kursi ah oo kuwa raaxada iyo madadaalada ah. haddii aad jeceshahay duulimaadka oo aad rabto inaad ka dhigto habiyadaada, ikhtiyaarkan ayaa kugu ah mid kugu habboon oo aad ku tababaran kartid oo aad heer sare aad ku gaari kartid. 2, Private Pilot License, ruqsadda duuliyaha gaarka ee loo soo gaabiyo PPL. tani waa ruqsadaha ku ogolaan doonta inaad duuli karto diyaarad aan lagu talagelin dhoofinta ganacsi. ka sokow, waa tallaabada ugu horeysa ee la raaco si aad u noqotid duuliye ganacsi. middan waxay kaa saacidaysaa sidoo kale inaad ku sii tababaratid xirfad ahaan si aad u noqotid duuliye dhammaystiran, taasoo aroortii kaa saacidi karta inaad noqotid duuliye shirkad ganacsi. 3, Commercial Pilot License oo loo soo gaabiyo CPL and Airline Transport ATPL Frozen.
shatiga duulimaadyada ganacsiga CPL iyo diyaaradaha duulimaadka ee ATPL waa ruqsado kuu ogolaanaya inaad ku duusho diyaaradaha ugu fiican adduunka. Haddaba waa maxay maadooyinka aad u baahan tahay aad taqaano aasaas ahaan si aad u noqotid duuliye? Waayo waxaa lagaaga baahan yahay maadooyin asal ahaan ama basic ahaan inaad ka dhisnaatid si aad u baratid xirfadani ama aad u noqotid duuliye. Waxaa ka mid ah maadooyinkaas mathematics-ka, xisaabaadkii, physics-kii, waa garata soo maahan. Waxaa ka mid ah computer science-ka, cilmiga computerka inaad taqaanid oo kale. Waxaa ka mid ah cilmiga loo yaqaan inaad baratid hawada, yacni saadaasha hawada, navigation, radio navigation. waxaad yacni lagaa rabaa sidoo kale inaad baratid wax loo yaqaan flight planning, qorsheynta duulista, matoorada inaad wax ka taqaanid. Sidoo kale aircraft structure, qaab dhismeedka ay diyaaraddu leedahay, maadadaasna inaad baratid basic ahaan. Maadooyinkaas ayaa lagaa baahanyaa si aad yacni hore ugu tillaabsato, aad ugu gudubto koorsooyinka waaweyn ee sii maldahaya mase sii sharaxaya yacni koorsadani. Tallaabooyinka lagu noqonayo duuliye diyaaradeed waa inaad qaadataa koorsooyinkan hoos ku xusan, tababarkooda theory ahaan iyo practice ahaan iyo laysinkooda. 1. Private pilot licence ama laysinka diyaaradaha gaarka ah. Tababarkani had iyo jeer wuxuu ka bilaabmaa ruqsadaha. Sidoo kale koorsadani waxay ka kooban tahay qayb aragtiyadeed oo aad ku qaadan doonto ilaa 9 maado, dhammaantoodana la xiriira duulista hawada. Koorsadani waxaad ku qaadan doontaa 45 saacadood oo practical diyaarad duulin ah oo aad ku baran doontid yacni basic ahaan duulimaadka ilaa 45 saacadood. 2. Aragtida ATPL ama shatiga duulista diyaaradaha ee ATPL-ka, taasoo ah yacni koorso ka kooban ilaa 14 maado. Koorsadani waxaad u qaadan kartaa qaab iskuul ah ama qaab online ahaan ayaad u qaadan kartaa. Laakiin koorsadani in badan oo maadooyinkeeda ka mid ah waxaa ku soo qaadatay oo hore ugu soo qaadatay koorsadii hore private pilot licence. Sidoo kale koorsadani waxay qaadan doontaa inaad samaysid 770 saacadood oo duulin ah oo practical ah oo diyaarad yacni aad duulisid. 3. Waqtiga dhisida. Waxaa jira waqti adig ku gaar ah. Waqtigaas waxaa loo baahan yahay inaad basic ahaan aad adiga isku dhistid oo aad practical badan aad ku samaysid si aad u heshid khibrad laga maarmaanka u ah dhisidda yacni hiwaayadaada duulimeed. 4. Multi-engine rate. Markaad ka gudubto imtixaanka ugu dambeeya ee koorsada ATPL oo aad dhammaysato, waxaad qaadanaysaa koorsadan loo yaqaan multi-engine. Koorsadani waxay ka kooban tahay 2 qaybood, qayb aragti ah oo qaadan doonta ilaa 7 saacadood iyo qayb practical ah oo qaadan doonta ilaa 6 saacadood. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay hal maado ayaa koorsadan ku qaadan doontaa. Maadadaasna waxaa la yiraahdaa The Operation and Systems of Multi-Engine Aircraft, howlgalka iyo nidaamyada diyaaradaha matoorada badan ee ku shaqeeya. 5. Instrument rating. Koorsadani waxay ku ogolaanaysaa inaad ku duuliso diyaaradda keliya tixraaca qalabka duulimaadka, taasoo ah inaad si aragti la'aan ah oo yacni caawimaad banaanka kaaga imaanaya aysan jirin, yacni inaad adiga awood u lahayd inaad kaxayn kartid maadaama khibradaada marayso stage 4 oo adiga aad awood u lahayd inaad kaxayso. 6. Commercial plane licence waa shatiga duuliyaha ganacsiga. Tallaabada ugu sareysa ee noqoshada duuliye diyaaradeed waa inaad qaadatid koorsadani. Koorsadani waxay ka kooban tahay ilaa 15 saacadood oo duulimaad diyaaradeed ah oo ka kooban yacni inaad 10 saacadood aad ku qaadatid diyaaradaha ku shaqeeya single motorska, matoorada yacni hal matoorle diyaaradaha ku shaqeeya, iyo 5 saacadood aad ku qaadan doontid yacni maxaa la dhahay diyaaradaha matoorada badan yacni inaad ku kaxaysid. yacni koorsadani waxaa qasab ah inaad ahaatid 18 jir. waayo markan waxaad taagan tahay stage aad adiga ugu shaqayn kartid basna aad leedahay levelkii ugu dambeeyay. waayo waxaa lagaaga baahan yahay markaas yacni inaad 18 jir aad tahay, imtixaanaadka aad diyaar u tahay. kadib waxaad awood u leedahay shirkad allaale shirkad duulimaad oo ganacsi ah inaad u shaqaysid sida Turkish Airlines, sida Abu Dhabi, sida Imaaraadka, diyaaradahaas oo kale inaad u shaqaysid.
ama diyaaradaha caalamiga oo ganacsiyada quseeya inaad u shaqaysid. waxaa jira wax loo yaqaan Frozen ATPL. koorsada ugu dambeysa aad qaadan doonto waa koorsada loo yaqaan Frozen ATPL. koorsadani waxay qaadan doontaa 1500 oo saacadood ah. 1500 oo saacadood inaad samaysid duulimaad diyaaradeed oo practical ah. waana stage ugu dambeeyo. ayay commercialka waxay u kala duwan yihiin waqtiga dheeraadka ah oo lagaaga xaqiijinayo si aad u noqotid duuliye diyaaradeed. imise ayay kugu kacaysaa inaad noqotid duuliye diyaaradeed? duulimaadkanaasi waxay muujinaysaa ballanqaad maaliyadeed oo weyn. taas ka sokow waxay u baahan tahay mas-uuliyad guud ahaan iyo u heelan, maadaama ay tahay qayb aad u tartan badan oo leh dalab fiican. waxay ku xiran tahay wadada tababarka aad go'aansato inaad adiga qaadato oo aad raacdo. waxa ugu muhiimsan inaad si fiican u qiimeyso wax iskuul kasta oo duulimaad ahay oo ku siinayo. ha u ogolaan naftaada in lagaa qaado qiimo kasta. si taxadar leh u ogow wax ka jira iskuul kasta, sida saacadaha duulimaadka aad ku baranaysid, saacadaha waxbaridda, qiimeynta qalabka waxbaridda, tusaalayaasha iyo wixii la midka ah quseeya iskuul walba. si kastaba ha noqotee, qarash badani wuu kaa bixi doonaa. haddana waa inaad qadarisaa inaan ka hadlayno mid ka mid ah xirfadaha aqoonsiga ugu sare ka leh bulshada caalamiga. taasoo ah inaad noqonaysid duuliye oo ah profession aad lacag badan ka samayn kartid haddii aad ku guuleysatid. waa garta maahan. insha allah waxaan rajeynaa muuqaalka inuu ku anfacay. fadlan janka haddii aad ku cusubtahay subscribe saar. wixii talo iyo fikrad ah qaybta comments-ka.